الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي قوينا واحد سبحانه وتعالى حديث القدس نبي ونوغا ورنيا وحو كيري صدح قف قيامها أنا للدودية إلهي باري سبحانه وتعالى صدح قف قيامة مركي مادان أنا للدودي وآلي سبحانه وتعالى الخطر تعرف يرسل ككوباد وحو إلهي سبحانه وتعالى qof aniga la igu aaminay kadibna ballankii ka baxay ka ana la doodaya buu Ilaahay yiri sidee Ilaahay buu ku dhaartay inuu waxa qabanayo shaqaynayo hawsha qabanayo sida yeelayo markaas la aaminay maadaama Ilaahay ku dhaartay ballankii buu ka baxay Ilaahay baa lagu aaminayo waxa la yiri Ilaahay dartii baan kugu aaminay markaasuu ballankii ka baxay qofkaas qiyaamaha ana la doodaya buu Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala qofka labaad wuxuu Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala qof xor ay iibsaday oo lacagtiisa cunay uu jaasuusay gaanu ka iibsaday asagoo muslim ah cadowgiisu uu gacan geliyay intuu way soo galayaan kadibna lacag ku cunay oo lacag ku qaatay kaana ana la doodayay buu Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala qofka saddexaad qof kiraystay qof markuu shaqadii u qabtayna lacagtiisa iyo mushaharkiisa sii waayay Ilaahay wuxuu yiri ka ala la doodayo qiyaamo markuu yimaado waxaad u malaynaysaa hadii Ilaahay kula doodayo Ilaahay ku haysto yaa ka furfuraya yaa ka badbaadinaya waxa inaga maanta inagu badan oo risaalo iyo halkan uga direynaa baaq uga direynaa dadka loo shaqeeyo ee kala duwan ee shaqaalaha kala duwan u shaqeeya ha ogaadaan shaqaalahaasi markuu shaqadiisa guto haddii xaqiisa la sii waayo qofka xaqa sii waayo xaqiisa bixin waayo qiyaamo Ilaahay baa la doodi nabiguna wuxuu baynu yiri calayhi salaatu wasalaam a'tu al-ajira haqqahu qabla an yajifa araqu qofka shaqaalaha ah lacagtiisa siiya oo ku shaqeeyay intaan dhididkiisu qalalin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xuquuqdaas iska ilaali. Assalaamu calaykum.